daawadayaal kusoo dhawaada waa xubintii sportiska waxaanu ka hadli doonaa ciyaaryahan lagu magacaabo Faarax Aadan oo ku magac dheer Faaraxow oo ka dheela gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xawo. Waa ciyaaryahan aad iyo aad u tayo badan, waa ciyaaryahan xirfad badan, waa ciyaaryahan kubad sameeyaha aad iyo aad xirfadiisa loola dhacay oo marka uu dheelayo garoomadu ay soo buux dhaafaan. Faarax Aadan wuxuu kasoo qayb galay ciyaaro badan, waa nin heer gobol ah, waa nin dhaafay heer degmo oo dhaafay heer gobol oo maraya heer qaran. Faarax Aadan waa nin aad iyo aad u da'yar kubad sameeyaha. Faarax Aadan 2017 wuxuu kasoo qayb galay kulamadii lagu qabanayay gobolada ee Soomaaliya, wuxuuna u saftay gobolka saddexda gobol ee Jubbaland. Maamul goboleedka Jubbaland ayuu u saftay, maamul goboleedyada ayuu ka qayb galay, hilmaan hadal kuma jiro. Faarax Aadan wuxuu kula guuleystay koobkii maamul goboleedka Jubbaland. aad iyo aad kubad sameeyahan kasoo jeeda gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xawo ayaa seasonkii 17 ka dheelay maamul goboleedkii Jubbaland. seasonkii dambe oo 2018 wuxuu u wareegay maamul goboleedka Koonfur Galbeed uu isagana guulo badan la soo gaaray. Waa kubad sameeye, waa xirfadle aad iyo aad xagga khadka dhexe ugu wanaagsan oo gool dhaliye ah. Waa nin da'yar. Faarax oo kale lama helayo ciyaaraha sportiska, lagama helo. Faarax waa nin aad iyo aad xagga xirfadda ugu dheereeya. Waa nin marka uu ciyaarta ku dhex jiro uu maamulayo 90 daqiiqo ee garoonka uu maamulayo. Taageeraha wuxuu ku leeyahay degmada Balad Xawo shacab aad iyo aad u taageero badan. Faarax aniga waan la dhacsanaa ciyaarihiisa, aad iyo aad ayaan u taageeraa. Waa ninka kaliya oo aan kubadiisa garoomada u tagay inaan daawado, dad badanna ay ila qabaan barnaamijkaas. Faarax waxaan leeyahay xirfadaada horey u sii wad, dadaalkaaga sii wad, heer qaran ayaa tahay Faarax.